السلام عليكم. مقعي وعبد الله وحكيت سنة حفيز كشرعي ريد إيجل LC سال صعتان بسجال كي جون سنة كان لوضكم إلى شنتي أي حنبادي قدام بيسي سعودال كي أوسح مدحوين ترامب دخن قشي أو دخن قش يعني دخن قلي حيرادنا سي أن عدالة أهين أي أسها ميسي كمنان الصديال أو في سوين كردونا أما دي في 2025 أنا جو حفيز كريد إيجل LC وحنكو هولنا هاي إن أنا وحكي بدلنا dacwadaha aan horey u gudbinay si aan u muujino in xayraadani ay tahay mid sharci darro ah mid aan sharci ahayn. Sidoo kale waxaan hadda fursad u fidinaynaa kooxo cusub oo si wadajir u dacweynaya xayraadan socdaalka ee cusub oo la soo rogay. Muuqaalkani waxa uu ku saabsan yahay fursadda u furan xulashada ama dadka DV 2025 selecteeska ah oo horey loo doortay oo horey u galay wareysiga ama interviewga hore u galay si ay ugu qayb qaataan dacwad kooxeed oo sharcigan xanibaada loogu diidan yahay ama looga soo horjeedo. Dacwadan kooxeed waxa aan ka gudbin doonaa maxkamadda degmada federaalka ee degmada Columbia, maxkamadda federaalka ee degmada Columbia actually. Waxaa jira taariikho muhiim ah aad u baahan tahay inaad xasuusto. Ugu dambeyn isdiiwaangelinta ama waxay noqon doontaa Talaadada 8 July 2025. Qorshuhu waxa uu yahay in dacwada la gudbiyo Isniin 25 July 2025. Taariikhaas waa kuwa go'an, yani labadaas taariikhadan soo sheegnay waa inta la gudbin doono waxay noqon doontaa dacwada 15 July maalin Isniin ah 2025. 8 July 2025 waxay noqon doontaa maalinta ugu dambaysa ee la isdiiwaangeliyo. Hadda aan ka hadalno shuruudaha qofka ka qaybgali kara ama ka qaybgalaha ama qofka ka qayb qaadan kara dacwadaha. Si aad uga qayb qaadato dacwadan waa in marka hore aad horey u dhamaystirtay foomkaaga DS 260 inaad hore u buuxsatay foomkaas aad soo gabagabaysay. waa in aad horey u gashay wareysiga fiisaha socdaalka like interviewga ina hore u gashay horey mataqaana lagu soo wareystay interviewga soo dhamaysatay. waa in aad hadda ku jirtaa xaaladda administrative processing ama horey lagugu diiday sababo la xiriira xayraadda hadda la soo rogay ama xayraad socdaalka hadda la soo rogay madaxweynaha Trump uu saxay inay ku saameysay lagu dhahay xayraadaas darteeda kuma siin karno wax fiisaha. sidoo kale waa inaad ka soo jeedaa mid ka mid ah wadamada xanibaadan ay saameysay sida Soomaaliya oo kale. tusaaladan u soo qaadano Soomaaliya dadka DV 2025 selecteeska ahayeen Soomaaliya ka soo jeeda way saameysay xaaladan oo hadda soo kordhay. aan ka hadalno qiimaha ka qaybgalka, yani qof walba oo mataqaana ka qayb galaya ama ka qayb qaadan karo ka qayb qaadan doono dacwadan qarshaadka ku bixi kara. qarashka qareenka waa $500 qof kasta xulashada DV 2025 ka yani qof kasta DV 2025 ahaa oo shuruudaha aan soo sheegnay buuxiyay waxa uu bixinayaa $500 soo qayb qaato. qiimahaas waxa uu daboolaya dhammaan xubnaha qoyska tiradooda inta ay doonto hal ay ka taamo inta doonto gaadho $500 kasoo qad dadka familkan ka hadlaya waxay koobaysaa ama ay ku filan tahay dadka familkaadan qof walba yani gooni lacag laguma qaadayo. waa hal qoys halkaas lacag bisa laga qaadi doonaa. qofka hadduu halkiis yahay halkiis lacagtiis baa laga qaadi doonaa, yani qarshaad si gooni loo kala bixinaya ma jirto. sidoo kale qarshaadkani waa in la bixiyaa ka hor inta aan mataqaana la bilaabin matalaada, yani in dacwadan lagugu matalin ka hor waa inaad bixisaa $500. ma jiri doono qorshayaal lacag qaybsan ama dib u dhigis lacageed sida mataqaana inaad qayb bixisid ama qaybna hadhoodii aad bixisid ma jiri doonto. yani lacagtan hadda hal mar la bixinaya hadhoodii dib wax laga bixin doono ma jirto. waxaa jira sheegis muhiim ah. dacwadani waa mid gaar ah. waxa aan adeegsan doonaa xeelad sharciyeed oo cusub oo aan hore aan mataqaan loo tijaabanin. sidaa daraadeed waa muhiim in aad rajayso guul balse aadan filan guul sugan. yani guul rajay laakiin hadhihin 100% waan guuleysanayaa yani ma sugna, laakiin waa inaad rajaysaa guul. ugu dambeyn si aad horey ugu socoto fadlan raac tilmaamaha isdiiwaangelinta ee aan kor ku xusnay ama boggeena ku xusan Red Eagle LC. waxaad raaci kartaa www.redeaglelc.com. shuruudaha xaggaasaan ka heli kartaa. haddii aad qabto su-aalo fadlan nala soo xiriir sida ugu dhaqsiyaha badan. haddii aad sugto maalinta ugu dambeysa si mataqaana su-aashaada ama noogu soo gudbisid ama jawaabteena waxay noqon doontaa mid soo daahda waqtigeedana mataqaana aad heli weysa jawaab waqti dambena ay noqoto.
and finally ama marka ugu dambeysa aad iyo aad baad umahadsantihiin dhammaantiina Red Eagle LLC bahda Red Eagle LLC waxay rajeynaysaa guul meel baad joogtaan